habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh qodobada aan caawiydin hayana waxa kamid ah ciidamada difaaca Puntland iyo kooxda Daesh oo mar kale dagaal xoogan maanta ku dhexmaray buraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland iyo sidoo kale madaxweyne Deni oo kulan la qaatay dhalinyarada gobolka Bari waxay kaga wada hadleen ayaa sidoo kale warbixintan aan ku arki doontaan balse marka hore wax ka codsanaya daawada in YouTube-ka ku soo biirto oo subscribe dhahdo muuqaalkana la geysarto gambaleelkana furto si ay ku soo gaaraniin warbixinada maalinlaha ay halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo ciidamada difaaca Puntland ayaa saaka dagaal toos ah la galay kooxda argagixisada ah ee Daesh kadib muddo kooxdu isku dayeysay inay ciidamada kaga dhumaaleystaan buuraha dhaardheer ee Calmiskaad kooxda Daesh ayaa saaka laga dilay ku dhawaad 8 xubnood oo u badnaa kuwa kooxda u qaabilsanaa aasidda iyo rakibitaanka minooyinka iyo sidoo kale kuwii u qaabilsanaa kicinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo kooxdu isticmaali jirtay inay ku xiraaneen walxaha qarxa sidoo kale waxa kooxda saaka laga dilay taliye sare oo kooxda Daesh u qaabilsanaa hagidda iyo rakibidda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa uuna sidoo kale kooxda u qaabilsanaa cilid bixinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida ay sheegeen ciidamada difaaca Puntland ee ku sugan buraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland dhanka kale ciidamada difaaca Puntland ayaa haatan waxa uu haray laba saldhig oo kooxda Daesh firxadkoodii ay isku arursanayaan waxaana la rajaynayaa in maalmaha soo socda mid kamid ah saldhigyadaas dagaal culus ay ku qaadaan ciidamada difaaca Puntland sidoo kale Puntland oo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah ee ka caawinaya duqeymaha cirka ee kooxda lagu beegsanayo ayaa rabta in ay kooxda ku wiiqdo duqeymo dhanka cirka ah si loo yareeyo ama loo wiiqo awoodda kooxda kale xubno kooxda Daesh ka tirsanaa oo ciidamada difaaca Puntland ay qabteen ayaa sheegay inay ka tirsanaayeen kooxda Daesh isla markaasna ay ka soo carareen una adkeysan waayeen duqeymaha cirka ah oo ay Calmiskaad ka wadaaneen saaxiibada caalamiga ah ee Puntland taasoo muujinaysa inay wax badan ka tarayso duqeynta cirka ah ee kooxda la beegsanayo dhanka kale madaxweynaha dowladda Puntland sida Abdullaahi Deni oo kulan la yeeshay dhalinyarada gobolka Bari ayaa kala hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa amniga gobolka Bari iyo si gaar ah magaalada Boosaaso oo ah caasimadda gobolka madaxweynaha ayaa dhalinyarada iyo haweenka Puntland ku amaanay doorkoodii muhiimka ahaa oo ay ka qaateen dagaalkii Calmiskaad waxa uuna sheegay madaxweynuhu in wali loo baahan yahay kaalintii dhalinyarada iyo sidoo kale haweenkaba madaxweyne Deni ayaa sheegay in haweenka Puntland ay si gaar ah ula shaqeeyeen laamaha amniga ay yihiin kuwa ugu badan ee xogta u soo gudbiyay ciidamada difaaca Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso iyo sidoo kale gobolka Bariba madaxweyne Deni ayaa dhalinyarada Puntland ugu baaqay inay ka fogaadaan la shaqeynta kooxaha argagixisada ah waxa uuna sheegay in qofkii lagu qabto isagoo la shaqeynaya kooxahaas uu la kulmi doono ciqaab adag uusan muddo ka soo kaban karin sidoo kale madaxweyne Deni ayaa dhalinyarada Puntland faray inay sameystaan shirkado dalxiis ayna ka faa'iideystaan dhulkooda quruxda badan ayna dalxiis u geeyaan dadka reer Puntland iyo sidoo kale dadka ajaanibta ah ee Puntland soo booqanaya dhanka kale madaxweyne Deni ayaa nabad ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee dhawaan dirartu ku dhexmartay gobolka Sanaag halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 20 ruux tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen sidoo kale madaxweynaha dowladda Puntland sida Abdullaahi Deni oo khudbad xasaasi ah jeediyay ayaa ka hadlay arrimo la xiriira xaaladda gobolka Shabeellada Dhexe ugu horeyntii madaxweyne Deni ayaa bogaadiyay guulaha ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macasuleyda ah ka soo hoyeen dagaalka ka socda Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu sidoo kale tacsi u diray askartii ku dhimatay howlgalkaasi sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen dhismaha Hotel Qaahira ee magaalada Beledweyne kaas oo ay ku dhinteen odayaal dhaqameed iyo saraakiil ciidan waxa uu falkaasi ku tilmaamay mid laga xumaado sidoo kale waxa uu madaxweyne Deni xusay inay isku mid yihiin Al-Shabaab iyo sidoo kale Daesh loona baahan yahay in loo midoobo dagaalkooda si looga saaro guud ahaan dalka oo dhan intaas ayaan daawada ku soo gabagabeynaa warbixinteena caawa haddii aad halkan la soo gaartay waxa ka codsanayna in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalka like saarto gambaleelkana furto si ay ku soo gaaraniin warbixinada maalinlaha ee halkan ku soo gudbino